السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada nabad daawadayaal meel kastoo aad daafaha adduunka aad nagala socotaan. goobtani waa goobtii xorta ahayd ee lagu falaqeynayay siyaasadaha ka jira geeska afrika. geeska afrika waxaa ka socda loolan siyaasadeed oo khaliijka laga soo minguuriyey ama sidaa u taqaanaanba carabaha. etoobiya waa wadanka weyn ee geeska afrika ee jaarka la ah somalilan iyo jabuuti iyo soomaaliyaba. xaaladeeda siyaasadeed ee gudaha etoobiya haddii ay tahay jananka militariga ciidamada etoobiya iyo hadday tahay jananka sirdoonka etoobiya waa isbedelay. eliteria waa la heshiisay etoobiya. 25 sannadood waxaa jananka militariga ahaa tigree oo wadanka etoobiya ka talinayay. samara ninka la idhaha magaciisa genaraal samara. okay, haddiiba ay eliteria heshiiyeen iyo etoobiya ay ku heshiiyeen xadkii labadooda u dhexeeyey, waxay dadka siyaasadda ay fafaalleeya ama faalleeya ay leeyihiin abrahala shargray barnaamijkaada waxay leeyihiin allahu mustacaan 200 oo qodob baa lagu heshiiyey etoobiya oo etoobiya laashay. ninka oramada ee cabey la yidhaaho abiye axmed doctor abiye axmed waa ra-iisul wasaaraha etoobiya. waxa uu ka shakiyey in xulufo xoogan oo xagga shacabka ah ay uga yimaadaan eliteria, maadaama eliteria shacabka ku nool ay yihiin dad tigreeya oo tigreegu ay degan yihiin xadka u xiga eliteria iyo etoobiya. dadka degan ee xadka ah waxa weeye waa dad tigreeya weeye. waxuu ka shakiyey isku socodka labada wadan ee xadadkaasi tigreegaasi, maadaama elitariana mucaarid xoogan etoobiya ay ku ahayd inayse soo xulufaystaan oo halkaa tigreegu isdib iskaga soo abaabulo. aada iyo aad waxa uu ka hadli doonaa maalimaha soo socda. maantana waa hadlay ninkaasi janankii. waxa uu ka hadlay in ciidamada etoobiya ee soomaaliya jooga la soo baxayaan. waxa uu ka hadlay arrinta dagaalkii tukaraqna uu ka hadlay. waa jananka cusub ee amxaarka ee etoobiyaanka. walow arrimaha geeska afrika oo maraykanka u xil saaray etoobiya inay mas-uul uga tahay, oo marka laga hadlayo mandaqada geeska afrika nabadgelyadeeda iyo arrimaheegaba maraykanku wuxuu u xil saaray etoobiya u xil saaray. 26 sannadood oo etoobiya iyo eliteria ay colahaayeen kadib maanta oo bishan aynu ku jirno 6 way heshiiyeen. haddiiba la heshiiyey oo arkayso arrimaha socda, maalinta ciidda ay nagu soo foodale waxaa laga baqayaa inuu dagaal xoogan dib mar labaad uga qarxo jiidda tukaraq ee puntland iyo somalilan isku hor fadhiyaan. taa waxaa loo sababeynaya loo nisbeynaya waxa weeye waktigii dagaalka ugu horeysay tukaraq ay somalilan ciidamadeedu qabsanayeen. waxaa lagu hayay waktigaasi la qabsaday mar ay dabaaldegaysay puntland oo ay farmaajo soo dhaweynaysay oo barxadda garoowe lagu soo dhaweynayey ayaa dagaalkaasi uu ka dhacay tukaraq oo lagu qabsaday. haddii baynu siyaasadda faalayno, puntland dagaalka iyadna mar labaad bay soo qaaday. waxay ku soo beegtay 18 may ay iyadna somalilan la dabaaldegayo hargeysa iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee somalilan. haddaba waxaa laga cabsi qabaa maalinta ciidda ee islaamku dabaaldegayo dhammaan ciidamadu shacabku een war laysku hayn maalintaas inuu dagaal xoogli ka dhex qarxo tukaraq. waxaa kaloo dhalinyarada siyaasiyiinta ee ka soo jeeda dhulbahantaha iyo warsangeliga ee gobolka sool iyo sanaag iyo awdal iyo salal ay furayaan ay ku dhawaaqayaan urur siyaasadeed ay dib boodhka uga tufayaan oo la yidhaaho USP oo ku 1960kii jiray. nimankani waa dhalinyaro ku nool maraykanka, yurub iyo wadanka gudihiisaba ku nool, iyo carabaha iyo eeshiyaba. waa aqoon-yahano da-yara oo siyaasadda u bisil oo is urursaday. waxay sheegayaan in 1960kii xulufo isku boodo la odhan jiray ee gobolka awdal iyo sool ay jirtay,
ay tahayna maanta in laga maarmaan ay tahay inaan laga maarmayn inay isxulfaystaan labada shacab ee bulshadaasi ama gudaha ha joogaan ama dibadda ha joogaane oo ururkaasi dib boodhka looga tumayo la idhaha u s b aragtiyo badan baynu ururin doonaa dhalinyarada ama dadka reer somaliland ama dadka ummadda soomaaliyeedba fikirkooga ayaanu cabiri doonaa soo dalba kamarada akhi dib uga bax dib u soo gal 1960kii waxaa ka jiray somaliland ururo fara badan oo ay ka mid ahaayeen ururka naf syl u s b iyo qaar kale oo fara badan oo 60kii lagu midoobay oo urur siyaasadeed ahaa oo somaliland ka jiray maanta waxay leeyihiin siyaasaddu kama fursanayso in dib u soo dalbo cali baasho akhi adoo raaliya siyaasadda waxay leeyihiin kama fursanayso in boodhka dib looga jufo ee ururkaasi urur siyaasadeedkaasi u s b la odhan jiray ay ku midoobeen wakhtigaasi gobolada awdal iyo salal oo wakhtigaa may jirin salale waxay jiray awdal iyo u s b oo ahaa dhulbahantaha iyo warsangeliga oo harti ahaa isbeddelka siyaasadeed ee etoobiya ka dhacay ee sidii u saameyn doonaa xaaladda geeska afrika ka jira waxay leeyihin dadka siyaasadda ay fafaaleeya ama ka sheekeeya horta kow marka u horeysa wuxuu saameynayaa deegaanada soomaalida etoobiya ee uu iminka madaxweynaha ka yahay cabdi maxamuud iley dhammaantiin hala sheergaray adeera soo dhawaada waynu falaqaynanaa qof walba fikirkiisuu dhiibanayaa meesha aflagaado iyo loogama baahna iyo shaksi personal attack loogama baahna waxaa loo baahan yahay si cilmiyeysan oo aqooni ku jirto inaad u siyaasadda aada u faallaysid ood u analyse garaysid arrinkaasi haddii uu sidaa noqdo waa sidaa iyo sidaa haddii sidaa iyo sidaasi saa la yeelo waa siaysaa ma laga yaabaa in dagaal xoogani ka dhaco tukaraq maalinta ciidda niyo run ahaantii haddii aanu fikirkayga cabiro arrinkaasi waa sidaa iyo sidaysaa haddaanu nahay dhulbahanta iyo haddaanu majeerteen nahay iyo haddaanu isaaq nahay iyo haddaanu samaroon nahay iyo arrimahaasi arrimo fiican maaha ka dhalinyarahaan adeer uga caliya haddii baad doonayso saaxadda siyaasadda inaad soo gashid si akademiya oo aqooni ku jirta u hadal marka hore waxay la leeyahay kadib markii 1991kii somalilan ee magaalada burco lagaga dhawaaqay iyo 1993kii waxyaabihii lagu heshiiyey inay ahaayeen awood qaybsiga dowladnimada awood qaybsigii dowladnimadana aan maanta la arkaynin oo dhinac ka raran tahay waxaa dib boodhka looga tufayaa oo la hagaajinayaa ururkii la odhan jiray u s b waxa uu noqon doonaa urur siyaasadeed ay ku midoobaan dhulbahantaha iyo warsangeliga iyo samaroonka iyo weliba ciise oo degan isaguna xeebaha awdal markaa aragtidiina seed u aragtaan jalanka ugu sarreeya etoobiya waxa 25 sannadood haystay tigree waa la bedelay waxaa lagu bedelay nin amxaara heshiiska etoobiya iyo seed u aragtaan eliteria waa fikrada aynu doonano dhallinyareena isweydaarsano ood uga faa'idaystaan heshiiskaasi etoobiya maxay dareentay etoobiya lama heshiin eliteria weligeed lama heshiin xag siyaasadeed iyo xag walba wakhtigii dowladdii dhargigii waddanka laga qaadayay bay heshiis ahaayeen adeega ismaaciil dadkan soo qaban doonaa cali baashe ninka la idhaha horta ugu horreysiin doonaa inuu soo dalbado weeye kamarada haddii uu maqlayo oo nin deegaaladaasi ka soo jeeda ururkan lagu dhawaaqayo dhallinyaradaasi aqoon-yahaniinta ee urur siyaasadeedka xulafada la idhaho isku boodada oo dhammaantiin hala sheergaraya barnaamijka isbeddelka siyaasadeed ee maalinba maalinta ka dambeysa etoobiya ee ka soo xooganaanaya dadka qaar waxay leeyihiin etoobiya shiki weyn bay soomaalidii ka qaaday kadib markii ay etoobiya soomaalidii ka shakiday ama jubbaland ama maxaland ama maxay kalaha lala kala baxbaxee ama jabuuti lafteeda etoobiya soomaalidii waa ka shakiday meel kastay maamul iyo dowladba ku leeyihiin kadib etoobiya waxay la heshiisay eliteria way isku haleyn kari weyday in halkana soomaali ay col ka yihiin ay haddana isku qoslaan oo siyaasad tahay iyaduna ay haddana ay col noqdaan eliteria oo badankeegu ah
dad tigreeya kadib waxay door biday abiy axmed inuu la heshiiyo nimanka la idhaaho tigreega oo u badan waddanka eliteria haysta madaxweynahooguna uu yahay asiyaas afawarqi mucangeg asiyaas afawarqi waxaa keenay in maanta lala heshiiyo waxa weeyaan bay leeyihin nimanka brofeserada ee siyaasadda indheendheeya etoobiyaanku waxay aada uga shakiyeen soomaalidii meel kastay dunida ka joogaanba iyo dowladahooga taasi halkaasaynu kaga gudbi waxaynu soo qaban doonaa cali baashe haddii allah awoodi la ogolaado ah aqoon-yahan ka soo jeeda gobolka sool bal isagu sida fikirkiisa urur siyaasadeedka ka shaqayn doona danaha bulshada sool iyo awdal oo la idhaaho u s b oo ku 960kiina jiray waxaynu ka hadlanaa waxa weeye caadifad maaha waxaynu ka hadlanaa waxa weeye walaalayaal fikir baa la iswadaarsanaya siyaasiya qofkii siyaasaddu dhibaso ee dhiikar leh ama xanuunsanaya oo si kale u xanuunsanaya waxaanu ka codsanaynaa inaanu daawan barnaamijyada noocan oo kale ah maaha inaad confuse ka qaado xaqiiqada iyo waaqaca jira cali baashe microfonka waan ku siiyey mar labaadna bal hadda waan kugu soo celin doonaa dhammaantiin inaad sheer garaysaan weeyaan idigoo raalliya ood gaadhsiisaan bulshada mar labaad walaal soo codso cali baasho haddii uu jiro qof kale oo deegaanadaasi ka soo jeeda farta ha soo taagto sool ayaan horta ku bilaabanaa waxaa la leeyahy waxaa laga baqayaa inuu dagaal xoogani ka dhaco maalinta ciidda ah ee tukaraq sababta loo sababaynaya waxa weeye somaliland markii ay tukaraq gacanta ku qabanaysay puntland way dabaaldegaysay waxayna soo dhaweynaysay barxadda garowe ku soo dhaweynaysay farmaajo dagaalkii labaad ay soo qaaday puntlandna somaliland way dabaaldegaysay 18 May bayna u dabaaldegaysay haddaba waxaa la leeyahy maalinta ciidda ee munaasabadda la dabaaldegaya islaamka labada dhinac baynu dagaal xoogani ka dhex dhaco ayaa laga shakisan yahay qaramada midoobay waxay soo saareen samora waxay soo saareen in si bilaa shuruuda labada ciidanba loo kala qaado puntland iyo ethiopia bal horta marka horeysa darwiishkaan u yeedhaya ninkaa darwiishku ugu qorantay ee dhallinyarada isku boodo siyaasadeed baa la odhan jiray ururkaasi u s b ee ku 960kii warsangeliga iyo dhulbaantu iyo gadabursiga iyo ciisu ay wada lahaayeen waxa laga maarmaan noqotay siyaasadaha maanta socda ee mandaqada ka jira in la isxulufaysto haddaad arkaysaan arrimo fara badan baa ka jira ood la socotaan oo 1954 reeraa isxulufaystay oo 1900 arrinka cali baashan soo qabanaya guuleeda adna soo qabanaya cali baashan soo qabanaya guuleeda akhay sheer gareeya Ethiopia waxay u gacan gashay waan soo qabanaya waan soo qaraacay brother qabo cali baashan qabo qoraalka iska daa Ethiopia waxay tiri anagu isku haleyn mayno Soomaali anagu waxaan la heshiinaynaa Eritrea dhinac walba uu eegay ninka meesha maanta fadhiya la yidhaha abiy axmed doctor abiy axmed saamaynta jananka la bedelay ee militariga ee ninka tigreega ah lagu bedelay ninka amxaarkii number 1 wuxuu saamayn doonaa janankaasi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa sida ay sheegaan nimanka u dhun daloolo arrimaha dowlad deegaanka Ethiopia siyaasadda Ethiopia aynu ka soo xignay anagu alxamdulillah waxaan ku noqonaynaa cali baashe niyow inaadar oo ku siinayaa kulno naga qabanaysid bal guuleed baan siinayaa ninka guuleed la yiraahdo aad baan dhammaantiin islaamaya oo ina sheer garaysaanna waa muhiim meesha siyaasad baa lagu gorfeeyaa ama amxaar la soo xulufayso ama tigree la soo xulufayso waa political waxa laga hadlaya halkan goobtan laga hadlaa profilkayga siyaasad baa laga hadlaa iyo wixii kale xor anu ahayba waan kaga hadlaa run ahaantii Ethiopia waxay sheegtay in aynay Soomaali isku haleyn karin ama dowladda federaalka ee Soomaaliya ahaato ama Somaliland ha ahaato iskuma haleyn karano bay tiri waxaanu la heshiinaynaa bay tiri anagu Eritrea waa sababta keentay 25 sanadood oo ay colahaayeen Eritrea iyo Ethiopia ay heshiiyeen dadka qaar siyaasadda faallaya waxay leeyihiin arrinku sidaa uma dhignee arrinku waxa uu dhigan yahay abiy axmed maadaama uu yahay nin oromaa isbedel weyn ee oromada ku sameysay siyaasadda Ethiopia waxa uu la heshiiyey
markuu kadib markii janankii tigreega ahaa laga qaaday meesha ee samara ninkan la idhaaho xilka laga qaaday ayaa waxa ay dhacday in eritrea la heshiiyo sababta eritrea la heshiiyo shacabka eritrea dhammaantoodu waa tigree nimanka tigreegi waxay dhabarka ku hayaan waxa weeye gobolkaasi waddankaasi la idhaaho eritrea ayay dhabarka ku hayaan intaanu siyaasadda haddaba aynu fashilmin oo aynu noqon tigreesi soo xulufaystay oo xoogoogu iyo fadhigooguna uu noqdo asmara maadaama eritrea ayna doonayn dowladda etoobiyaan oo dhisan waa inuu iskala heshiiyo eritrea la heshiiyo waa siyaasadda dadka u dhuun daloole aad geeska ugu haya ayaa arrintaa xaqiijiyey jananka amxaarka isaga maxaa laga filayaa arrimahaasi iyo arrimo kaleba waynu falaqaynaynaa dhammaantiin sheerta ha lagu qabto ilma adeerayaan warwaan ku salaamay nabi adigu waxaa tahay nin dhalinyarada ka soo jeeda ree awdal ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha qadiyadda ree awdal sideed u aragtaa nimanka dhalinyarada ah ee ururka USP ee 1960kii ay ku midoobeen dhulbahantaha iyo warsangeligu iyo weliba ciisaha iyo gadabuursigu in ay leeyihiin dib boardkaan uga jufannaa oo waanu ku midoobanaa annagoo reer somaliland oo waxaanu iska xulufaysananaa haddiiba yahay ururka waddani haddiiba uu yahay xisbiga kulmiye oo nimanka u sarreeya ay yihiin beesha dhexe ayaanu iska xulufaysananaa oo ururadii 60kii baan dib u soo celinaynaa arrimaha adigu ka dhalinyar ahaan sidoo aragtaa ree awdal waan soo dhaweynayaa tan intii moogtahay Soomaaliba la Israaciila ilaahay moogtahay dadkaas way daba dhigay wadad moogtahay wax badan ka dhaxeeyaan wadad moogtahay xadaarada badan wadaagay wadad si walba moogtahay dhaqan iyo dhinac walba iska qabta marka waan soo dhaweynayaa waa fikir fiican caawa xataa Itoobiya ka hadlayso ku dartay xaaladdeeda xaaladda Itoobiya nin waxa qabsaday la yiraahdo Abiy Ahmed oo ka yimid qowmiyadda Oromo waxaanu ku yimid isbeddelka shacabka 25 sanadood muddo ka badan xukuumadda ka talisa Asmara iyo xukuumadda Addis Ababa ma heshiin sideed u aragtaa heshiiska dhex maray Eritrea iyo Itoobiya waa marka hore walaalo kala cadhoodun bay hayeen moogtahay Eritrea iyo Itoobiya walaalo kala cadhoodun bay hayeenoo tii u badan isku celiso moogtahay kulley waa de moogtahay Eritrean waa isla moogtahay Tigray waxa meesha degan waa Tigray oo qowmiyadda Tigray ma degtay Eritreana Ethiopian iyadu ma degtan aad iyo aad kulley damba isu geyso wixii isu geeyay waa danta cid walba ay moogtahay qaban kartaa cid kasta oo dantaada ka dhex aragto yuhuudna alla ka yeelay ka dhex galo adigoo raaliya ada hadalka ku watay waad ku mahadsan tahay kulankaad nagala soo qayb gashay barnaamijka dhammaan dhalinyarada waxaa leenahay meesha ku jira ka faa'iideysto sheer gareeya arrinkaas arbal sheer gareeya soo daawinni inta meesha ku soo Ethiopia ay dhageyso waxa la Ethiopia waxay isku haleyn kari weyday oo muddo 27 sanadood ama 30 sano ku dhawaad siyaasadda Soomaaliya way isku haleyn kari weyday Soomaalidii ama dawladda federaalka ee imika jirtay iyo kuwa soo socda ahaadaan ama Somaliland ba ahaadaan ama Djibouti ba ahaato waxay leedahay Ethiopia isku haleyn kari maayo anigu siyaasadda Soomaalida waa sababta keentay dadka leeyihiin qaar siyaasadda indheendheeya in ay la heshiiso Asmara arrinka adigu sidoo aragtaa Asmara dadam baa gasho wadam moogtahay 4 milyan oo bilaabada oo bilaa moogtahay aan container meel was digin laba webi bileeyeen wax kala ma hayaan Ethiopia wana 4 milyan qowmiyad inta la eeg demeeshi dantooda ay geliyaan ay ka arkaan buu tagayaan aniga laftii waan jeclaan lahaa moogtahay moogtahay xitaa anigu baan faa'iidada ka qayb galo maadaama xeebo badan oo dhararsan leeyahay inaan xeebaha qayb ka iibiyo oo dadaalka qayb ka noqdo oo nafirta kaamil ka shaqeeyo laakiin uu kaga shaqeysan maayo inaan waxayga siiyee waxbaan kala iibsan lahayn anagu moogtahay inkastoo aan moogtahay Ethiopia wax walba dhinaca dambe ay ka soo boodo aad baad u mahadsan tahay guuleed dadka kale intaan siinana aad iyo aad baa kaaga mahad celinaya kulankaaga ma jeegantan waxay soo diray moogtahay ka jirnay walax bay jirmaysan waan moogtahay anu soo ximaya inta ilaahay inoo leysiyade aad baad u mahadsan tahay way kaasi guuleed buu ahaa oo nin dhalinyaro waxa soo qabanaya nin sool ka soo jeeda gobolka sool oo dhulbahantaa bal cali baashi in adeero bal qoraalka iska daa bal soo qabsan mikrofoonka cali baashi
علي باشا علي باشا علي باشا قراعي علي باشا een waxa la leeyahay arrimo badan oo siyaasada oo fara badan baa jira oo mandaqada geeska Afrika ka jira xulafo oo khaliijka ah baa isaguna jira geesta kale Turki iyo Qatar waa jiraan iyaguna oo dhinacyo la xulfaysanaya ee Soomaalida oo dhinac garabka saaraya Imaaraadkuna intaaba isna waa jira oo laba gardaaq baa la leeyahay ama Somaliland waa kula jira meel Soomaaliyana waa la socdaa koonfurta Soomaaliya dadkan iyo mikrofoonka u diyaarka ah baan soo qaban doonaa cabdi waxaan soo qaban doonaa cabdi darwiish darwiish cabdi darwiish baan soo qabanaya cali baashi waan kugu soo noqonaynaa haddii aan la idhaa cabdi de walaal soo qabaad ku leedahay mina qabanaysidii brother taleefka kaa xun malaha lifeka ka bax cali baashi adoo raaliya barnaamijka sheer gareeya gudbiya lifeka markaad ka baxdid dib u soo gal markaad dib u soo gashid requestiga soo dooro sida loo soo codsado kamarada السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo marka hore magacaaga iyo deegaankaad ka soo jeedo ku bilaabaya barnaamijka صاحب aniga waxa la yiraahdaa darwiish waxaan ka soo jeedaa gobolka Sool oo ku salaamaya adiga iyo asxaabta kale meesha ku jirta dhammaan sheer gareeya nin dhalinyarada oo gobolka Sool ka soo jeeda magaciisuna darwiish yahay baa tahay maasha Allah waxaan ku weydiinaynaa ka waran xulufada siyaasadeed ku 960kii jirtay ee la oran jiray isku boodada ururkii la oran jiray USP in dhalinyaro aqoon yahanina oo Mareykan iyo Yurub iyo wadanka gudihiisa jooga ay doonayaan in dib boorka uga tufaan oo ururka USP la soo celiyo adigu fikirkaaga sidee u aragtaa niyo kulli fikirkaasi ma xuma laakiin waxaan ku weydiin lahaa fikirka maxaa lagu soo celinayaa kulli dadka gobolada waqooyi ka soo wada jeeda USB wada samaystay kullay wax de hadda la abaabulayo maaha ama wax hadda soo baxay laakiin ilaa iyo markii koonfuriyo waqooyiga la isku darsamay wuu jira ururkaasi 60kii 1960kii buu ahaa marka aniyo hadduu de yahay urur caadi oo kullay de Soomaaliya ka howlgala waayo labada dadka aad sheegtay ama goboladanba waxay ku mideysan yihiin federaalka marka hadduu yahay de wax federaalka wax lagula qaybsanayo waa soo dhaweynaya anigu laakiin hadduu wax ka baxsan yahay ama dadkan de u shaqo tagay maamulka Hargeysa waa meesheeda taa marka anu de u malayn maayo qof yar shaqo tagay inuu wax bedeli karo laakiin wax umadu ku qaracsan tahay waayo dadka reer Awdal ama dadkan reer Sool ama Sanaag ama Cayn meeshii doonta waa noqotay marka xaqiiqada laga hadlo boqolkiiba 99 intuba waxay ka mideysan yihiin ama waxay u yihiin dadka buddiga ummadda isku haysa oo kulay marka uma malaynayo haday dad yani ku fikiraya sida dadka shaqo tagay inay yihiin dadkana dad u ololeynaya dadka shaqo tagay dhexdooda waxay ma soo kordhin karaan laakiin dad kalsooni ka haysta haday yihiin dadkii ay ka yimaadeen oo ummadda qaranka Soomaaliyeed wax ay wax kula qaybsanayaan ay la yimaadaan ururkaasni uu kulay sidoo kuwii hore u guuleystay kana u guuleysanaya aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan uga jawaabtay sidoo u aragtaa adigu bal heshiiska dhex maray dawladda guunka ee qarniyada jirtay Ethiopia iyo Eritrea aragtidaada niyo kulay heshiiskaas waxaan u malaynayaa de kulay Ethiopia ninkan hadda Abiy Ahmed siyaasad furfuran buu la soo galay de kaliya ma aha inuu Eritrea la heshiiyay waxyaalo badan buu qabtay hadda dadkii isku murugsanaa ka dhex jiray meesha soo qabanaya Ali Baasho teeda kale niyo de Ethiopia markii ninkan ay soo qabanaysay ay u dhiibaysay de waxay ka fikirtay niyo si ku dhacday Soomaaliya oo kale inay u burburto waayo berigii hore caalamka u soo gurmaday markii Tigreego niman iska reermiyo jimhada qabsadeen de markasta kulay reer galbeedka ilaalinay hadda qudheeda iyaga kula taliyay in qowmiyadan kacsan ee boqolkiiba adigu 40ka Ethiopia in loo dhiibo xukunka isaguna niyo wadadii saxda ahayd ee markii hore lagu hagayay buu isaguna sii horumariyay oo dhulkii xitaa la isku hayay Ethiopia ka qabsatay Eritrea uu ka baxay hadda sidoo heshiisku u dhigay marka ciidan badna hadda way samaysteen aniga waxaan u malaynayaa de Kuuriyada waqooyi Kuuriyada koonfureed laba meelood ka xun ma jirin ama colaad soo kala dhex martay ma jirin marka aniga waxay la tahay de sidii labada Kuuriyada hadda yani iyagu dantooda ka dhex arkeen
inaan dee dagaal wuxuu soo kordhinayna loo midayn lahaa in Eritrea iyo Ethiopia kolley ay wax badan hadda isla meel dhigeen oo xataa laga yaabo mustaqbalka inay midoobaan oo dib isugu soo noqdaan waayo dad kale fogna ma aha dee goboladan xiga Eritrea oo dhan iyo dhinaca Suudaan ba dee Tigray baa degan Eritrea iyo marka Tigray waa u badan marka waxaad leedahayba waxaan waxaad leedahayba waddan bay isku darsanayaan oo mustaqbalka way midoobayaanba heshiiska ka soo ها wax kale hortaagan ma jiraan waayo waa dad isku af oo isku dhaqan oo isku dada de wax waa sida Ethiopia waa sida Soomaaliya iyo Djibouti ay kala yihiin oo kale waxa kale oo ku weydiinaynaa marka Ethiopiana uu kale hadda kobac ballaaran bay ka samaysay dhinac walba iyadan deked lahayn bay ganacsiga kale kobac dhinac walba ka samaysay nin dhul bahantaa baa tahay ma reelaas caanood baa tahay mise reeb buu hoodlay meelahaas aan wadbay saa maasha allah aad baa saaxiib kaaga mahad celinaya fikirkaaga iyo aragtidaada aad nala wadaagtay haye saaxiib waa mahadsantahay thank you qof walba aragtidiisa iyo fikirkiisa waa cabiraya annagu dadka afka kama gelinayno gacanta nin walba wuxuu ku hadlayo oon aflagaada ahayn oo hadal siyaasi ah waanu soo dhaweynaynaa wixii laakiin aflagaada annagu ma ogolin dhammaantiinna waxaan leenahay sheergaraya barnaamijka oo la wadaaga dhalinyarada waxaa qodobada halkaa ku qoran baa lagaga hadlayaa dowladda Ethiopia iyo Eritrea oo 25 sano muddo ka badan aan heshiis ahayn oo maanta heshiiyey iyo waxaan ku hadlanaa ururkii USP la oran jiray ee dhulbaantaha iyo warsangeliga iyo Samroon iyo Ciise oo weli ay doonayaan dhalinyaro dibadda jooga iyo gudaha jooga inay dib u xulfaystaan goboladaasi oo boorka looga tufo sidoo aragtidaada baa ku soo dhawow adigu deegaankeed ka soo jeedaa horta waan ku salaamay Nabil Cali aad iyo aad walaal waan ka qaaday deegaankeed ka soo jeedaa adigu magacayga waxa la dhahaa Cali Baasha Xasan Kabarle oo ka soo jeeda gobolka Sool magaalada Laascaanood ma sha Allah ku soo dhawow sidoo aragtaa nimanka aqoon-yahaniinta ee dibadda iyo gudahaba jooga doonaya ururkaasi inay dib boorka uga tufaan 1960kii ahaa ee isku boodada lagu naanaysi jiray aad fikirkaaga Nabil horta taariikhdu way isqoraysaa ururka USP anoo ciyaaran maqli jiray oo la oran jiray USP Samroon iyo dhulbahante iyo Ciise iyo warsangeliga wada leh absolutely markii horena Samroon iyo dhulbahanta bilaabay sheekadan oo Axmed Saleeman Dafle iyo ilma Cali Samatar iyo baa ka dambeeyay waan gartay marka anagu horta waan soo dhaweynaynaa haddaan reer Laascaanood nahay wax kasta oo aan kula dagaalamayno sheegaantana diyaar baan u nahay absolutely sideed u aragtaa anagu gobolka Sool baanu degnaa waxaanu ka soo horjeednaa mabda'a sheegaanta waxaanu ka soo horjeednaa mabda'a ay Sacad Muuse iyo Habar Jecel isu bahaysteen waxaanu ka soo horjeednaa dawladdan la afduubay ka soo horjeednaa in annagana la yiraahdo reer Laascaanood xoog baa la idinku haysanayaa oo meel looma dhaqaaq kartaan oo saxaafadiinni baa la caburinayaa odayaashiinni baa la xirxirayaa annagu waanu ka dagaalamaynaa intan naf nagu jirtana hal nin intuu naga nool yahayna annagu reerkii aan xoreynay Michael iyo Jordan la bixi jiray iyo Jackson annaga noo talin maayaan gobolka Sool Ilaahay baa nagu beeray Ilaahay baa na keenay meelna ugama socono waanu taageersanahay wax allaala iyo wixii ummadda isu keenaya USP-na annagu waanu soo dhaweynaynaa madaxaanu ku sidanaa aad baan kaaga mahad celinayaa aragtidaadaasi iyo fikirkaagaasi aad qabtid ee siyaasiga ah ee Balaturxaanta markaad leedahay sheegaan iyo Sacad Muuse iyo Habar Jecel baad carabka ku dhufatay macnaheedu ma waxaad u jeedaa in xilalkii iyo Somaliland arrimaheegii oo dhan iyagu isku koobeen miya wal umada halka u iftiimi reero dhab anaa ku iftiiminaya Somaliland waxa la isku yiraahdaa gobolada waqooyiga waan gartay annagu reer Sool baan nahay haddaan raacayna iyo haddaan diinanaba waa mid naga gooda annaga absolutely waan gartay tan sheegaantan ku iftiiminaya Somaliland de waqtigii ay caadiga ahayd waad garanaysaa ama cigaal haystay ama riyaal haystay dadku xilalka siday u haayeen waan gartay laakiin maanta ka ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya waa Habar Jecel iyo Sacad Muuse dadka ma Ilaahay baa u sameeyay Habar Jecel iyo Sacad Muuse mise dadka way ka caqli badan yihiin waan gartay dadkana kama caqli badna dadkana kama tira badna dadkana kama aqoon badna aqoonna awdal bay taallaa dagaal iyo rag iska celinna gobolka Sool bay taallaa hadday labadooda israacaanna meesha way ka baxayaan oo wallaahi oo bilaahi run baan kuu sheegayaa
nabiilow soo nin samaroona ma tihid adigu absolutely aad iyo aad adigu ciidankan jeegaanta la socda ee lasoo khalday ee boorama ka yimid ee aan waxba kala ogeyn ee dhalinyarada ah ee beenta loo soo sheegay ee fikirka jeegaanta lasoo aaminsiiyey ee samaroon sharaf bay naga mudan yihiine solaadiinta samaroon waxaanu ka codsanaynaa inay baaq soo diraan oo ciidankooda nagala baxaan laakiin sacad muuse habar jecel waan isku celinayna aad baad walaal u mahadsan tahay iyadoo qori baan sheekadu gaadhin ba aynu ku dhammayn karnaa ka aqoonayahaniin iyo ka dhalinyar ahaanba qalin baynu ku dhammayn karnaa anigu waxaan kuu sheegayaa ramadaantu haddii ay dhammaato foodaa la istaraya oo walaahaya waxaan maqalnay iladha xogogaal aanu ka helnay in maalinta ciidda ah uu dagaal xoogani ka qarxayo tukarraqtaa waan la soconnaa aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga iyo aragtidaada walaal thank you waxaan u sheegayaa nabiilow run baan kuu sheegayaa dad tolo oo ilmaadeera baynu nahay dad wada dhalatay baynu nahay soo gabagabee garaad soo gabagabee waa barnaamijka hala sheer gareeyo barnaamijka hala sheer gareeyo 120 qof annaga dadkani maxay ahaayeen waan kuu sheegayaa annagu hadalka waa kaaga baxaya laakiinse waxaan kuu sheegayaa jihaad baanu ku jirnay samaroontu jihaadka ama USB ha noqoto ama sheegaanta ha noo soo raacdo labadaa wax ka dhexeeya ma jiraan absolutely aad baan kaaga mahad celinaynaa fikirkaagaasi iyo aqligaaga saliimka ah ee ku hadashay thank you baan ku leenahay waad mahadsantahay walaal thank you waa kaaga baxay nabiil waad mahadsantahay ninkaas waxaa nin dhalinyarada reesola bal waxaynu eegaynaa xagga hablaha ayaynu markana eegaynaa gobaad cabdullaahi baynu soo qabanaa iyada gobaad cabdullaahi xagga hablaha cadaalad baynu samaynaa barnaamijka hala sheer gareeyo dhammaantiinba meel kastoo joogteen daafaha adduunka gobaad hadday ku jirto qoraalada cayda iyo aflagaadadu way ka reeban tahay boggaygan iyo profilekaygan aniga waa si cilmiyeysan oo akademiya oo siyaasiyiin loo soo hadlo salaamu calaykum marka hore kusoo dhawo barnaamijka calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay aad baa kuu salaamaya adiga iyo bulshada ku taxan barnaamijkaagaba absolute marka hore adigu ummadda isku sheeg magacaaga iyo waxaan filayaa inaad ree awdal tahay iska daa anaa ku garanayaba sax waxaan gabadh reer awdala waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaalaha aad maanta kusoo qaadanaysid barogaraamka intii ilaahay iga garan aduu gabadh ree awdalaa tahay oo reer nuura oo reer dilaa sideed u aragtaa 1960kii dhalinyarada hawshaasi wada ee doonaysa inay gudabursi iyo ciise iyo dhulbahante iyo warsangeli ay isxulafaystaan ururka USB la yidhaahana ay samaystaan oo la odhan jiray waqtigaasi 60kii lagu naanaysi jiray isku boodo labada gobol fikirkaaga waan kuu sii daynayaa kal sax waan jecelahay wax kasta oo Soomaali ay hore u lahayd oo wanaag Soomaali maalintay dawladii hore jirtay ama ay ururadii dadku iyagoo koonay la koona kala degan ay danahooga masiirkooga iyagoo qabiil kaga hadlaynin ay kaga hadlayeen aragtida ay ka midaysan yihiin ay isku raacayeen in dib loogu noqdo oo dadku aragtida iyo aqliga saliimka ay ku saleeyaan siyaasadooda iyo waxay doonayaan iyo waxay diidaan waa fikir aan aad u soo dhaweynayo waana soo dhaweynaya inuu dib u soo noqdo sidaan taariikhaha ka akhrinay badan waxa jiray xisbigaasi oo ay ku midaysnaayeen dad galbeedka waqooyiga Soomaaliya iyo bariga waqooyiga Soomaaliya degan awdal iyo waxay ahaayeen saaxil iyo waxa tanaag iyo waxay ahaayeen iyo awdal waxaan u jeedaa sool iyo awdal iyo waliba tanaag waxa daga warsangeliga USB okay waan aad baan soo dhaweynayaa fikirkaasi waayo maanta awal waxaad moodaa in dadku ay ka tanaasuleen waxyaalahaasi oo nin walba markii dawladii dhexe Soomaaliya ay burburtay nin walba danihiisa uu iska raacday waxyaalaha hala sheer gareeyo baad moodaa laakiin maanta de waxaad moodaa in loo tilmaamay dadkii hurdada laga kiciyo mar haddii jeegaani ka bilaabantay meeshii dadkani ay deegaanka ku ahaayeen oo laba qabiil ay yidhaahdeen geel ay isugu kaaya jiree laba jilib waliba laba qabiil ma odhanaya waa laba jilib oo hal reer ka soo wada jeeda ay yidhaahdeen aynu isku banayno un labadeenu waxaan leeyahay taasi waxay hurdada ka kicinaysaa dad badan waliba beelaha darafyada degan bay hurdada ka kicinaysaa wayna fiicantahay inay inta isku yimaadaan ayahooga ka tashadaan aad baan u soo dhaweynayaa fikirkaas dadku inay wax wada lahaadaan
oo si sharaf leh oo wanaag leh sida shalay wax isugu darsadeen u wada dhaqmaan oo waji la yaqaan inay dadku kala tagaan oo nin walba de maray arintu iska toltasho Soomaaliya oo dhan ba maanta mara wada tolatay meeshiisa uu ku sugo federaalka iyo Soomaaliya intay hagaagayso taana waan soo dhaweynayaa haddii la waayo wixii la isku darsaday uu meesha ka baxo de cid uma diidi karto nin walba leedahay halkaa ummadda u caddeyn adeerado raalli markaad leedahay wixii la waayey haddii ay wixii la waayey jireen aad leedahay inaad bal waxa la waayey la wada lahaa ummadda waxay ku heshiiyeen walaalo maxaa ka mid ah sida maxaa la yidhahdaa aynu ku hayno taariikhda waqtigii dowladdii dhexe Soomaaliya ay burburtay meesha ka baxday waxa gobolada waqooyi lagaga dhawaaqay in Somaliland dadkii wada deganaa oo markaa isugu jiray Dhubahante, Warsangeri, Gadabuursi, Isaaq, Ciise shanta qabiil iyo inta kale badan ee degta Faqashini baa degan Madhibaan baa degan Soomaali far badan baa degan oo innan halkan ku soo koobi karin waxay go'aan ku gaadheen in ay wada dhistaan maadaama dawladdii burburtay ay meesha ka baxday inay dadkani wax wada yeeshaan oo ay nabad ay ku noolaadaan ayna samaystaan wax ay dawladnimo haykal dawladeed uu eegde lama marnaba tii Soomaaliya manay gaadhayno waa la garanayaa nacamde dad si kala go'ay wadan kala go'ay waddanka dareemi karaysa laakiin se in markaa ay ku badbaadaan ay nabad ku ilaashadaan ay nabad ku wada noolaadaan dadka dariska ay ku wada noolaadaan ayay ahayd tii waxaad moodaa muddo waxoogaa way soo shaqaysay laakiin se hadda waxaad moodaa in dadkii la kala diray waxaad moodaa in maxaa la yidhahdaa beeshii dhexe laftirkeygii maanta dagaal ka dhex bilaabmay waxaad moodaa in laba jilib oo hoose ay waddankii oo dhan ba ay la wareegeen oo laysaga kacayo kursiga waan kuu baneeyey banee waxyaalaha imiga hagbadda iyo jeegaanta iyo magacyadan dee waa taqaanaa liibanow ma garatay marka hadday taasi timiday oo dadku wixii ay wada lahayd dadku waa wada cashuur bixiyayaal dadka koona minlow iyo caddo ilaa maxaa la yidhahdaa xaafuun dadku waxay wada bixiyaan waa cashuur bay bixiyaan cashuurtii ay bixiyeen in laba reer ama laba jilib ay cunaan oo dadku wixii ay wada lahaayeen uu ka baxa meesha wax caqliga saliimka qaadanaya maaha wax ku sii jiraysa ku sii soconaysana maaha adigu markaa ka haween ahaan iyo ka gobolkaaga iyo ka deegaan ahaanba waad soo dhaweynaysaa fikirka xulfada isku boodada aad baan fikirka u soo dhaweynayaa waliba waxaan jecelahay sida ugu dhaqsaha badan leh inay aayahooga ay uga wada tashadaan intay isku yimaadaan halo aad baad waxa kala doonaya inaan ka yar ha يا maxaad tidhi hallo cusub ee maanta aad moodid in aad looga hadlayo shalayna aad ka hadlayseen ee ka dhacday maxaa la yidhahdaa maqlaysaa ninka walaala ها ninkaas ma ninka Faisal iska daa naftiisa la dhameeyay ninkaas sheegaysa ma waxaan doonaynaa kelmad halkaa ka idhaahdo bes kaliya dadka reer awdal oo isagu fariinta u fariyay inaan halka fariin uga faro adaaba programkaaga aad igu taxay dadka reer awdal anigu Faisal laba hadlayo mana raba inaan Faisal isaga ka hadlo ma rabo laakiin se umada reer awdal ku darso waxaanu kugu tixgelinaynaa maadaama tahay gabadh haweena oo hooyo ah oo sharaf iyo is iyo karaamay hooyooyinku iyo haweenku ay leeyihiin awgeed ayaan kugu tixgelinayaa topiga ka baxsanay ay kaga hadlano oo ku sii daayay ka faa'iideysaa daba hadal waad mahadsantahay walaalo aad baad mahadsantahay waxaan leeyahay bulshada reer awdal aad moodid in arrintan ilaa shalay ilaa daraad ku jirtay miidiyaha aadka looga hadlayay doonayo inuu isku dhufto samaroon iyo maxaa la yidhahdaa ummada bulshooyinka Gadabuursiye degan galbeedka degan waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan bariga maxaa la yidhahdaa Soomaaliya Puntland inuu isku dhufto oo uu yiraahdo caruuraha jaamacadda Camuud digta dhibaato halkan ku galay waxyaalaha caynkaasi uu ka hadlayo Faisal heerka inuu gaadho ama kaliyaha uu yeesho boorama inuu ka taliyo ama isagu wax u yeeriyo dad cilmi iyo caqliba ku dhaama waxa leeyahay waxa gaarsiiyay heerka oo kaliyaha inta leeg Faisal siiyay waa dadka reer awdal sidii maxaa la yidhahdaa aan doonaynayna ugama aysan jawaabin amba ha noqoto maamulka jaamacadda ama ha noqdo bulsho weynta ha noqoto in badan dadku halkii aanu doonaynay may dhigin xataa odayada salaadiinta hadlay halkii aanu doonaynay may dhigin Faisal iskuma diri karo dadka degan bariga iyo galbeedka waqooyiga Soomaaliya
waa waxii maxaa la yidhahdaa muddo badan bay usoo shaqaysay faysal iyo rag badan in badan bay usoo shaqaysay in mar walba maxaa la yidhahdaa iyagu qofka ay la dagaalsan yihiin ama dadka ay doonayaan iyagu inay weerarayaan in loola weerar tago taasi dowladdiisii aad bere u shaqayn weyday uu la weerar tegi waaye gadaboorsi maantana uu lama weerar tegayo daarood oo aqalkoogii lagu danto lagula dagaalayo waddankoogii lagu haysto raggaa dhulbaantee dhulkoogii lagu haysto gadabuursi uu lamana dagaal tegayo mana ku colaadinayno waa dad walaalahaya ah waa dad weligaya allahaya aanu iska guursanaynay aanu jaanahay soomaalinima naga dhaxayso waa dad mustaqbalkana federaalka la wada sugayo nin walba halkiisu ku sugaya faysal waxa leeyahay awdal kama taliyo laakiin ragga awdal u dhashay ee joogaa hadalka halkiisa ha dhigaan ha uga hadlaan si qurux badan faysalna munaafaqadani in badan bay usoo shaqaysay waxaan leeyahay maanta ma shaqaynayso aad baad mahadsan tahay inaad dadku way badan yihiin waqtiguna way nagu yaryihiin aad baan idiin salaamaya dhammaantiin barnaamijka dadka ku taxana waa salaamaya waad mahadsantahay liibaan aad baad ugu mahadsantahay walaala inaad siisay topiga ka baxsan waxaa topiga ka baxsan aan ka hadlayna asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin inad gabadhaasi mooyaane dadka kale oo ogolaan mayno iyadoo gabadhnimo iyo hooyanimo lagu ogolaanay wax topiga ka baxsan in laga hadlo haba yaraatee waa ka badna barnaamijka waxaanu ku hadlanaa sideed u aragtaa Ethiopia iyo Eritrea oo heshiis dhex maray muddo 25 sano kadib ay colahaayeen qodob tukarraq maalinta ciidda dagaalka xoogan ee lagu baaqayo ama looga shaqo qabo inuu ka dhacayo la talafteeda sideed u aragtaa ururka dhalinyarada ah ee siyaasiga ee siyaasiyiintu ku jiraan ee salaadiintu ku jiraan garaadada ku jiraan USB ee laga furayo gobolka Sool iyo Sanaag iyo waliba Awdal iyo Salalba fikirkiina oo sheer gareeyay barnaamijka adeer dhammaantiinba soo dhawaada siina sheer gareeyay barnaamijka qof walba 2 minutes baan ku siinayaa labadaada minute ka faa'iideyso meesha dadka laga soo qabanayo waa buuxdaabeen minute baan ku siinayaa qof walba yacquub kamarada ma hayo brother calaykum salaam soo dalbar request kamera yacquubow adigu deegaankeed ka soo jeedaa arto marka hore intaad barnaamijka gelin maaniga walaal haa walaal anigu qof Soomaaliyan ahay meena Soomaalinimadu nagu filayn marka hore waa nin naguma filnay hadal hanala soo gelinay naga barnaamijka la socotaayo waayahay waxa ka soo jeeda laba gobol adeer dood anagu ma furnana furin Soomaaliya tahay oo Soomaali ku hadlaysan oo ku ognahay marka ma muran bad noloo imanaysa adeero maya muranku lama imane horta Soomaalinimadu waa arrin jirta laakiin gobol ahaan meesha ka soo jeedada Soomaali waa la yahay anaga Soomaaliya adaa Soomaali taa ka gudub akhi anu kumili Oromo tahay Tigray baa tahay kuma oran dadka meesha daawanayana waa Soomaali taa inuu ka gudubno muranba kama taagna adigu ma Sool baad ka soo jeedaa mise waxaad ka soo jeedaa Baydhabo Janaayo mise Muqdisho wax sheego gobol maya walaal dalku inta uun ma aha laakiin anigu Sool baan ka soo jeedaa nin reer Sool baan ahay nin Soomaaliyeedna waan ahay laakiin anigu Soomaalinimada ayaa igu filan baan ku yiri laakiin deegaan haddaad doonaysid reer Sool baan ahay maxaad rabtaa markaa inaad walaal marka ka wada hadalno ururkan USB Awdal iyo Sanaag warsangeliga iyo dhulbaanta iyo Samrooni Ciise ay sameynayaan fikirkaaga sidoo aragtaa ururka USB war ururkan walaal ururkani waa urur wanaagsan waa mid ka daba maray oo aad iyo aad uga daba maray waqtigii maarta lagu dhawaaqi lahaa ee ay ahayd in arrintiisa iyo fikirkiisa laga wada hadlo imikana waan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa laakiin waa haddii laga helo eegada dadkana imika sanadahan dambe waxaa la arkay inuusan qofku maarta noloshiisa iyo maarta arrimihiisa u madax bannaanayn ma garanaysaa marka waa haddii laga helo Soomaalida kale ee walaalaheen ah ee iyaga laftigoodu aayahooda iyo waxay maslaxada iyo dantooda u arkaan aan kollaba raalli ka noqdeen in lagu faragashado ma garanaysaa waa kuwaasi markaa goboladee kuwaasi way jirtaa Soomaali baynu nahay walaaladeena beesha dhexe waa inaynu ka helnaa oo see looga helaya markaa bal hadal ogolaansho ilaan iyaga ku taliya de walaal soo iyaga inooma taliyaan imika ilaan run baa fiican baasha indhaha laga marida moogtahay talo iyo wala isku taliya iyo iyaga taliya iyo
arrimahaas madaxweyne ku-xigeenku waa nin samaroona ma fahamtay haye kagamaynaan haye hadlayn arrimaha akhi baasha hadduu win adigu fikirkaaga waad soo dhaweynaysaa ururka in la sameeyo intaas maad kaga baxanaa fikirkaaga etoobiya oo la heshiisay eliteria sideed u aragtaa taa lafteeda oo shan wareedho laatan sano ahayn walaal dadku inuu islaayo oo uu kala fogaado oo etoobiya uu kala kuweydiiyaan go'o etoobiya waxa aad uga badan waxa ka wanaagsan inuu dadku heshiiyo ma garanaysaa anigu waa heshiis oo dhan etoobiya caalamkao dhan baaban anigu soo dhaweyn lahaa oon odhan lahaa ha heshiiyaan labadan waaba laba daloo derisa waa laba daloo isku maarata isku diina oo macnaha dadka xukuma ay isku diin yihiin waa laba isku isira oo labada dhinacba dad isle baa laga helayaa marka waxaan anigu maaragtay ku baaqi lahaa oon odhan lahaa dadka soomaalidina ha gartaan in laysna dili karo lana heshiin karo marka inay tusaale u noqdaan dadkan soomaalida ahee iyagu ehelka ah baaban anigu yaan ku talin lahaa aad baad mahadsantahay walaal fikirkaaga ya thank you waaye laakiin in yarba nabiilow ku odhanayaa oo gebagaba ah oo aan toobinkana ka baxsanayn waad mahadsantahay waxaa akhi weeye muxuu qofka ahaatay eegada qofka fiiri soomaalinimadu yaana noqonin wax lagu caaroodo walaal anoo walaal reestoolo oo kula mid aban haddana soomaalinimadeeda ku faanayaa dee aniguba soomaali baan ahay yaa ka carooday soo ede inaad maxaad uga soomaali ku hadlano caaroonaysaa marka maxaad adeer waa doonaysaa ma limeed inaan reer hebel maanta dhacay ma soonkaa kugu yaraad wal kaaga adeer barnaamijka ay naga leexin oo salaamaya adeer gacali waa rabadaan salaamu calaykum waaye haye labadaa macasalaam tiim macasalaam ha haye naga leexinin topica dhammaantiin waxaanu leenahay rabadaan kariim meel kastoo daafaha adduunka aad ka joogtaanba bal gabadh baan imikana u yeedhayaa xamdo ugu qorantay waan isku balans garaynaynaa mar wiil mar gabadh haddii ay joogto sheergaray barnaamijka dhammaantiin inigoo raaliya Hello. fadlan Hello. assalaamu calaykum ها مقلنا أدوك ديجان كيت كسوت شيء أديرو هلو هذا الخط كاك ها علوسه القرآن لو غرب يا هلو Hello. هلو ها ما مقليsid ma هذا maqlaysid ديجان كيت كسوت شيء ولا gobolka Gabiley baan kasoo jeedaa walaalkay ما شاء الله قبل عقارن ha isuga dalbiso adigu fikirkaaga sideed u aragtaa ururkaasi USB in la sameeyo horta ummadu inay tashataa way fiican tahay ururkan in la samaystaa way qurux badan tahay laakiin waxaan leeyahay shacbigu iyaga isle waxa maanta laga xanqal taagayo wadan kale iyo meel kale inta wada dhalatee jaarka unba xaq isku leh maanta intay boorama guurto tegi mayso xamarna intay soo guurto boorama iman mayso su'aalan gabilena kugu intay weydiiyo guurto walaalo meel oo kale tegi kubigaa mayso ka bixin adeero waad ka baxday xamar lagama hadlayn somaliland gudaheega laga hadlayaa sool baa laga hadlayaa awdal baa laga hadlayaa sanaag baa laga hadlayaa horta inay samaysato soo kaan ku yidhi markii hore inay samaysato ay ku fiican yihiin waa haddaba qurux ilaahay badan tahay inay samaystaan dadku hay su-aal kale oo labaad baad doonaysaa topiga inaad kaga sii hadashid xor baad u tahay bal ka hadal fikirkaaga wey aan kugu daro bal adna afka aragtidaada hadal maya waxaan ku inaad yidhi markii hore inaad imaqlisi mooyaane way fiican tahay baan ku yidhi inay dadku tashadaan ay urur samaystaan horumarkooga iyo aayahoogaba ay kaga tashanayaan waayahay Laak- laakiin masha waxaan leeyahay shacbiga sool degan dagaal baa ii dhacaya kollay kuwii guusha raacdaa waxaan leeyahay hadduu dagaalku dhaco macnaa kuwii guusha raacdaa waa kuwa laga gardarayay guushana waxay raacaysaa baan leeyahay somaliland fifa somaliland weliba garow waa la tegayaa baa la lahaaya waxaa la tegayaa sanadkan haddii ilaahay idhaa kaalkacyo waxaan ahayn laga soo noqon maayo waa fikirkaagii aragtidaada waana fikir haddiiba waanan hubaa inaan kaalkacyo la tegayo maxaad ku hubtaa in dhowr kaalkacyo jeer la buu tegayo madaxweynuhu ka soo celiyo horta ma ogtahay taliyayaasha inay kaalkacyo in yidhaaheen la tegayo oo waxaan madaxweynuhu tegaynaa tegayo garowe kaalkacyo dhowr jeer somaliland ma buu laha maxay ka doonaysaa somaliland kaalkacyo inaad dad haddii qofku kugu soo duulo uu dalkaaga iyo xuduudkaaga ingiriisku dhigo maanta jabuuti xuduud baan leenahay kuma qabsan karno jabuutida tegno ma odhan karno dee ama jabuuti ma odhan karto ciisaa degan somaliland inta maan qaadananayo dadkeegaan soo doonana mana odhan karno dadka etoobiya degan ama awbare waan doonananayo dee dadkaygii weeyaano xuduudkaan dhaafana
ما عقلي ما جليسو لكن waxaan leeyahay xuduudka dadka reer ingiriisku Sool bay haddii dadkan ilaahay leeyihiin isku anagu beeray meel ay ku kala Somaliland tagayaan ma jirto anagu Somaliland ma rabno mana doonano haddaan dhulbaantanahay iyo warsangeli hanaga baxdo oo deegaanada annaga xor u ah oo iskala dhulkan awowka annaga leh ma qasab baa markaa in la kala qasbaa sidii siyaad baroo kale lama qasbay cid qasab 2018 baa lagu jiraa meel khasab ma yaalo wax la isqasbaa haye 2018 baa lagu jiraa khasab meesha ma yaalo shacabka reer waayahay Soomaaliya deegaanka inan baa tahay walaalo aad baan kaaga iyo mahadcelinayaa degmada u xora su'aalo kale oo adag baan ku weydiin waad lahaa mahadsan laakiin tahay inan baan weydiinanaa inan baan ku habboon su'aalaha adiguna xildhibaan golaha deegaanka iyo gabiley baan kugu ducaynaynaa salaamu calaykum waaw insha Allah soo sharaxayaa baad ilaahay dhaay gabiley gobolka cagaaran waa gobolkaygii moogta waxaan u yeedhanaa oo ku xigsiinanaa daraawiishtaasi ayaan afkaarahooga weydiinanaa bal iyagana aan dhammaantiin horta sheert wayna dhigtaaban malaynayaa miyaa dad barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay Ethiopia iyo Eritrea heshiiyey muddo 26 sano ku dhawaada sideed oo aragtidaada ururka USP yaa soo qabtaa farta soo taago ninka ugu qoran tahay ugaaso ina darwiish nagas jaamac cabdikariim jaamac cabdikariim kaasa soo qabanaya urur siyaasadeedka ee la aasayo ee qorshihiisu socdo ee ururka USP ee ku 960 sideed oo aragtaa waan ku salaamay Muuse oo akhi waan ku salaamay ugaas sideed oo aragtaa fikirkaaga ku salaamaya nabiilow saaxiib ururkan urur cusub maaha urur 60 jira weeye adu deegaanka ku sugtay horta ma sool baatay hey halkaasaan ka yimid dadka wada reer Soolni oo dad ku xidhan badankooda reer Sool ma sha Allah ku 960 gada bursi iyo ama samaroonba iyo waxa heshiiyey Ciise iyo waliba nimanka dhulbahantaha iyo warsangeliga waxay samaysteen USP oo la oran jiray isku boodo ma fikirkaaga adigu siyaad aragtaa maanta marxaladaha jira iyo siyaasadaha jira in la sameeyo ururka oo danaha deegaanada iyo danaha horumarinta iyo danaha siyaasiga ah ka shaqeynaya anoo ururkaas waan soo dhaweynayaa horta waa fiican yahay laakiin anigu waxaan qabaa waqti xaadirkani horta dhulku wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo dhulka markaad xoreysid baad waxaad samaysan kartaa dhulkii la haysto cidina ma xoreyn cidina urur kuma dhawaaqi karto marka waxaan qabaa horta dhulka marka hore in la xoreeyo oo loo sameeyo base ay muxuu ahaa ururkii ka muxuu ahaa howlgeli karaan ama ay ka bilaabi karaan hawshooda waayo waxa weeye boorama maanta kama soo degi karaan oo ururkaasi lagama dhawaaqi karo oo ogtahay boorama caqabada ka jirta gobolka Sool sidoo kale marka waa in la helaa meel lagaga dhawaaqo ururkaas waxaan aaminsanahay waqti xaadirkani ma habboona in urur lagu dhawaaqo waxaa habboon in dhulka muxuu ahaa la istifaaco la dagaalamo oo dhulka la xoreysto marka dhulka la xoreysto ba urur lagu dhawaaqi karaa marka ayaa la doogaya la dacaron wey yaa la doogaya waa la dacaron wey sidoo aragtaa dagaalka la leeyahay maanta ciida inuu dhaca ayaa laga yaabaya tukarraq oo dagaal culus halkaa ku dhex maro yoomul faraxa ummadda islaamka ciidas emilo horta dee inuu bil rabadaana lagu jiro 10kii dambe anigu kolley aragtidayda ma qabo muxuu ahaa wiil Soomaaliya inuu maalinta iidi lahaa inuu dhinto waxaan qabaa in waxaas wadaha lagu dhameeyo ninka duulaanka ku yimiye dee gabiley ka yimiye dad deegaankoodii rabaa inuu iska joogo iska raaxaysto adeer ninkaas rabaa u baaqaya inuu iskaga baxo su'aal baa ku weydiinaya horta maxaad gabileyun kaga laga andacoonaya jaamac ina cambaashaa dagaalka ku jiray oo dhulbahanta ina cambaashaa indhihiinu ma qabtaan miyaa dhulbahanta in maadeeraya karaal la taqaan nabiilow saaxiib waa runtaa su'aal fiican weeye ina cambaashaa waa shakhsi weeye waxa weeye fariyo waxaan iyo muxuu ahaa iyo yaa badan maxay ahayd maamaadii ninkaas waa hal nin weeye waana shakhsi wadariya waxaad yaa badan ninkaas waa shakhsi baan ku wari shakhsigaasina dadka kale ka badan baa hafinaya marka waxa weeye ninkaasi nama matalo waa nin shaqatay weeye absolutely marka adigu nabiilow horta waxaad tahay nin xaq u diriro
barnaamijyadu aad buu u fiican yihiin laakiin dee runtii waxaa fiican mararka qaarkiis inaad doodaada xaqiiqda ka hesho dhulbahantow ina ها bahalkii magarat aad iyo aad wallahi waanu ka hadlanaa si bilaa xanafa oo bilaa caadifada laakiin ummadda wax loo midda kale iftiimiyo waxaa la yidhi ninka wixii walaalkii waqaca jirtaynu ka hadlanaa aad baad u mahadsan ninka tahay walaalkii waqtigaaga waan ku siiyey malaha dadka kalenu yeedhina waansanta saaxiib aye saaxiib isagaasi nin darwiish buu ahaa isna kasoo jeeda deegaanadaasi sool darwiishkii waa fara badan yahay waxaan ku xigsiinayaa axmed qaasim haddii uu maqlayo uu joogo oo in badan soo dalbanaya axmed qaasim dhammaantiin waan isoo wada qabanaya barnaamijka gudbiya oo ummadda gaadhsiiyo sheergareeya kaa qaaday brother foosi axmed caynab yaa ustaad ya akhi waa ku salaamaya akhi ninkaasi aan jaaniska siiyey axmed ima maqlayo waana maqan yahay qofka kale ku xiga dadka kale ku xigaan soo qabanaa u heelan maxamuud nadiif baan soo qabanaya maxamuud nadiif waxaa ku xigi doona caarif maxamed gaarare miyo yaa u qoran gareeye hallo هلو السلام عليكم ها السلام عليكم calaykum assalaam adiga oo magacaaga iyo deegaankaad ka soo jeeda ku bilaabaya horta inaada ورطة وانكو سلام يا ولد المقعي هو محمود وحن كسو جيدا قبل كسناق لكن درويش بان هاي اما الصور باوين اسكوران الناس مقعو سي فضوضا والقيامة ما شاء الله way sideed u aragtaa ku lixdankii haddaba ururkii u s p la odhan jiray isku boodada ahaa awdal iyo sool iyo sanaagba dhulbahante iyo warsageli iyo ciise iyo samaroon ay ku midoobeen siyaasiga ahaa dhalinyaraa wada hawshaasi waxa wada niman siyaasiyiin aqoon-yahanina gudaha iyo dibadaba jooga oo ururkaa la furayo aragtidaada sideed u aragtaa adugu والله إني هو أركتدينو aad bay ugu wanaagsan tahay waxa wanaagsan dadku inuu isdhex galo oo ururkii markii horeba jiray 60kii ma garanaysaa dadku xulafo siyaasadeed uu samaystaa haddii alla ku roon yahay horena way u jirtay marka waxaan anigu waan soo dhaweynayaa mar walba dadku inuu isku xidhmo oo ururkan la sii ambaqaado oo ma garanaysaa mabdiisii iyo siyaasadiisii iyo dadka isku xidhkoodii iskaashigii oo halkaa kasii socda waan soo dhaweynayaa xaqiiqatan way Ethiopia iyo Eritrea heshiis baa dhex maray muddo 25 sano kadib ayay heshiiyeen sidoo aragtaa heshiiska dhex maray Ethiopia iyo Eritrea sidoo aragtaa warniyo waxaan u arkaa uun adduunka iminka waji cusub buu galay dadku intaa waxay soo fahmayeen dadka bulshada caalamka hadda Afrika malaawaynu ka yar tabayno haddaynu aad inaguna ma garanaysaa revolution badan baa ka socda oo waliba geeska Afrika marka adu globalizationkan iyo isku xurkan cusub ee bulshooyinka caalamka ay sameynayaan bay ka magaranaysaa ka ayaduna la ambaqaadaysaa adduunka isu soo fahmay adduunka in la isku soo xulmo la soo kaashado ay magaranaysaa muhiimadooda ka arkeen iyagoo arkeen dagaal faa'iido lahayn iyagoo haddana maxaa la yiraahdaa common bodies ama maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan ay ka simeeyeen sida diinta iyo afka iyo dadana wadaag badan ay yihiin waxyaabaha noocaas ama qodobada noocaas ayaa keenaya ma garanaysaa inay maslaxadooda u arkaan dagaal la deeynan lagu kala adkaanayno inay isku soo xirmaan marka waxaan u arkaa wallahi waa iska globalizationka ka mid tahay dadkii adduunka hadda wacyigoodii kor u kacay maalinta ciidda waxa la leeyahay gabagabadii su'aashooda maysan ku weydiinayna waxa weeye maalinta ciidda islaamku faraxsan yahay la ciidayo tukarag waxa looga shaki qabaa inuu dagaal xooggan ka qarxo labada dhinac Somaliland iyo Puntland dagaalka maalinta ciidda loo hub urursanayo loo dad urursanayo يوم الفرح هذا سيد أركتها نيو صاحبه هرتا حل رمضان إني كنت نادى الإسلام أنا وين قف سود وين يا متشرو قف سود وين يا متشرو دجال إن ضد صوماليات أي كم قرنا سا كرهيق ما من السود وين يا لكن سنيو حي إيمان يسا أنا وحن عرب قوات كان يهدي أي جرت حل سياسات وين لقوا حل سياسات بأنه كسر على أنت ضد صوماليات كوبابي لهاين لكن سواء وانت موقتا dadki way kiceen boqolkiiba boqol waxay u diyaar garoobeen inay xoreeyaan
waxaana keenaysa wacyiga dalka ka jiro oo markii ay jeegaan isku koobtay jeegaan xaqiiqatan waxaynu odhan karnaaba hadday laba reer jeegaan samaystaan oo siyaasiyan ay calaa kulli xaal annagoo awal oo maalkii wixii ku yaalay qaatay oo haddana kugula wariga joog waralaha allaha haddii alla iga jooga gacmaha taaganaya dee waa mid subxaanallah inaad wax laga yaabo weeye way aad baad mahadsan tahay waqti badan baan ku siiyey waad mahadsan tahay inaad waxaan soo qabanayaa isuga gabadh baan soo qabanayaa meeday gabadhii lahayd soo qabo maxaa u qornaa gabadhii meeday ها برايس منا سوق بسم ميكروفون برايس منا سوق قبنا يسوق قبل داسي برايس منا ugu qorantay soo qabso ها السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم رمضان كريم aad baan idin salaamayaa dadka barnaamijkan ku xidhan aad baan u salaamayaa laakiin waxaan qordiga ku leeyahay adoo aniga waxa kaliya ku jirnaaye waanu qoodhanaa dhageyso ma waxaad ka hadlaysaa un adigu waxaad ka hadlaysaa un dad aad kala fogeyso Soomaali kala fogeynteeda maxaad ku jeclaanaysaa adigu waxaad ka faa'iideysaa ma waxa laga hadlayaa urur siyaasadeed sida wadani kulmiye ururka siyaasadda samaysta laakiin se qabiiladan aad kaga hadlayso social media inaad riskada kuma fiicna Soomaali ma boorama intood rartaad geyn bahalkii aad geyn xamar aad geyn miya siyaasadeed baa laga hadlayaa shaydaanka iska naaro ilaahay halkuu ku dhigay 8 sano ayaad haysateen intaad ku leedihiin maxaa la yiraahdaa aad leedihiin jeegaan aad leedihiin 8 sano bay reer boorama haysan way adigoo waa nafis ma aha dhageyso adigu imisa sanad haysatay adna siiraayay imisa 8 sano ma haysanin 8 sano ma haysatay war daahir yaala ma anagu dooran 8 sano ma haysan siiraayay yaa doortay siiraayay erku ka soo dhacay siiraayay yaa doortay siiraayay waxa ka baxo 8 sano ma haysatay war hada dhageyso in cigaadii yaa doortay intii dooratay Soomaaliland intii bila munaafaqada ahayd baa dooratay maxay jiraan cigaad boorama meel laakiin adiga aga Soomaali kala fogeynaya bal waa ka xabadu dilayso anagu eeg sabaysaba laakiin ka xabadu dilayso mawduuca ka bixinay meel xanaaqsan tahay mise wadoodas ma xanaaqti waxaan xanaaqaya Soomaali maxaad u kala faquuqaysaa adigu Soomaali maxaad u kala jabinaysaa Soomaali inta maanta Soomaali joogta boorama oo kaliya maanta inay nabad ku seexataan aad jecel maxaad ku diidaysaa adigu aad u diidaysaa inta gubanaysa ku geeymiya سؤال مكوي ويدي هذا استجي برنامج بس كترتها ماشي نقول جاي معها بوقي قيلان لوغان بانا برنامج لايف الله gurigayga dheelaada aday soo doontay walaale idagayso gurigaygi ma hayo oran gurigaygiiso nin kaba hadlaya wadaydan ka ridanay daadna wadaadaad ridatay idagayso maxaad caburinaysaa qofka si fiican iyo Soomaalnimo u hadlaya caburaada iska daabaan ku leeyahay nin ragaatay Soomaalinimada sheegaysa loo sheego waa dawladda Soomaaliya farmaajo hogaamiya mata farmaajo hogaamiya Soomaalinimada waa inaad u damqataa ka buuhoodla jooga iyo ka dalgaduu jooga iyo ka xamar meel jooga aniga isku kaymid iyo ka boorama jooga Soomaalinimadu waa mid kaliya laakiin waxa lagu kala tagay siyaasad Soomaha madaxweynaha soo dhigatay laftirkiisu miyaan Soomaali ahayn هذا ولا له أظن ما تفهمين الموضوع على جهل ما تفهمين ما موضوع عوام فهمي لكن ما تفهمين السياسة أنا وحنا كلها Soomaali nimad waa inay ka goonaata barnaamijka soo ku soo reeboor ma waayo meel reer Soomaaliland hayn ma Jabuuti baad geyn maxamar baad geyn Soomaali weyn reeboor ma Soomaali weyn ka goonaata laakiin Soomaalinimada hadday kula noqoto gurigii hooyada ay joogtay ka qiilqiilinaysa hadday kula noqoto ka waran dadka aad la soo doonato midda siyaasadda ka saariya Soomaalinimada munaafaqada iyo Soomaalinimada kala saar nin walba markuu wuxuu doonayo isagu waayo ayuu Soomaali ku xoqdaa adu ma sheegan baad ana ku jawaabaya xisbi soo gal xisbi baad ku fiicantahay xisbi soo gal social media waxba ka qaylqaylin dadkii barnaamijku ku dhacay xanuunsanaya Yurub jooga ee sida afar darbi u eegay xanuunsanaya
hanagaga ciyaarina dowladnimada iyo waar dowladnimada hanagaga ciyaarina hay afartiina nimana yaryare intay yurub gaajo u tageen ku ciyaaraya dowladda sheegaanta noqotay ma dowladda sheegaanta noqotay waad noo sheegaysaa shalay bay noqotay shalay may naarad naga waxaa noolay mana naga war qofki maxaa dabeer xagaa baa na soo gashay barnaamijkii naga khalkhalay waa dumar oo iska dul qaadanna dumarku way iska caadifad ku leeyihiinoo dumarku waa gabdho ma garanaysaa iska dharar mar soomaalinimay ka sheekaynaysaa mar somaliland bay ka sheekaynaysaa mar jabuuti mar maxay meesha waxaa laga hadlayaa siyaasad urur siyaasadeed baa laga furayaa waxaa laga hadlayaa sinaan iyo cadaalad dowladnimo baa laga hadlayaa sidii loo qaybsan lahaa waxaa la doonayaa guddoomiyaha maxkamadda sare nin warsangeliya in laga dhigo waxaa la doonayaa jalanka militariga nin samaroona in laga dhigo waxaa la doonayaa wasaaradda arrimaha gudaha inanka in fadhiyo nin gabooya in loo dhiibo waxaa la doonayaa wixii lagu heshiiyey in la keeno haddii kalena in la yidhaa magaalada aynu kala galno labadaa mid ka dhaxaysa mana adeer markaa haynagu soo dabaqeen adeer bilaahi calaykum gabadh baa tahay dumarka oon ilaalinaa waa bermageydo waqti baan ku siinay waqtigaagiina waad ka faa'iidaysatay aad baan u mahadsan barnaamijkeenii baan sii wadanaa dadka hadalku dhibaya ee iska gubanaya waxaan leenahay biro badan baa lagu jiraa haddii aad dhiikar leedahay barnaamijkeygan haba soo gelin bada totaliba haddaad macaan leedahay sidaa ka daali baladeega maadeer haddaad dhiikar leedahay sidaa ka daali ha isku soo gelin haddaad neerfoos tahay ha soo gelin barnaamijka waayo xaalad siyaasiya laga hadlayaa iyo waaqac jira ayaa ummadda loo iftiiminayaa iyo xaqiiqo dhaba iyo wax lagu heshiiyey oo dhinac ka rarmay waxa lagu heshiiyo dhinaca ka rarmay waxaa la doonayaa in la toosiyo soomaali baa la nacay iyo soomaalinimaa la nacayo lagama hadlayo nagasti qofka ku xigeen u yeedhanaa markaynu intaa kaga gudubno gabadhaa qofka ku xiga aragtiyadiina dadka labaaba soo qaban karaba aan masaxa hortiisa waanu soo qabanaya dhammaantiin baanu soo qabanayaa waxaanu naga raali gelinaynaa gabadha xanaaqsanayd ayaan fahansanayn siyaasadda iyo topigeenu ku hadlano iyadana waxaanu leenahay isdeji rabadaan baa lagu jiraa waa bir rabadaan weeyi shaydaanka iska naaray ciiddiina way soo dhowday anigaasi u qaban waayo deniya dadkii lama soo qaban karayaaba maxaan la yeelayaa wari soo qabanayaan masaxayso soo dalbada mar kale waan masaxayaa barnaamijkeenu wuxuu ku salaysan yahay sideed hore bay niigu sheegay sideed u aragtaa heshiiska etoobiya iyo eritrea wuxuu ku salaysan yahay sideed u aragtaa ururka u s p 1960kii isku boodada ahaa ee reer awdal iyay ku heshiiyeen sanaag iyo sool oo noqonaya urur siyaasadeed ka howlgelaya ee somaliland oo lagaga wada hadlayo arrimaha gobolladaasi horumarkooga iyo deegaanadaasi horumarkooga fikirkiinu waa muhiim weeye waa noo muhiim qofka kacsanna waa loo dul qaadanaya maadaama lagu jiro social media meel publicaynu ku jirnaa hallo asalaamu calaykum adiguna ku soo dhawow fikirkaaga sideed u aragtaa urur siyaasadeedkaasi la samaynayo sida maxayga walaal qoraalkaaga maanan akrinin sorry maxay tahay markaas waxaa ka hadlaysay dib male adiga qofka loola socday barnaamijkeenu yeedhanaa adiga waad mahadsan tahay sorry thank you walaal soo dhegeyso markaasaan kugu soo celinaa insha allah axmed bayn soo qabanaa ninkay ugu qoran tahay
iltire oo soo qabanaya assalaamu calaykum وعليكم السلام مستر نبيل adigu gobolkeed ka soo jeedaa marka hore عوض البنك السوشيال awdal way fikirkaaga sidoo aragtaa ururka la furayo ee USB ee boardka laga tumayo ee nimanka aqoon-yahaniinta iyo siyaasiyiinta iyo dhalinyaraduba ay furayaan aragtidaada adoo ree awdala بسم الله الرحمن الرحيم هذه الفرو ururkaas oo b ururkii ay isku lahaan jireen dadka hartiga la yidhaahdo Somaliland bari iyo Somaliland galbeed ururkii ay isku lahaan jireen haddii dib loo soo cusboonaysiiyo oo la furo waa guul Somaliland u soo hoyatay bay noqonaysaa oo magacan Somaliland ee hadda qabiilka isku bedelay buu wuxuu noqonayaa macnihii qaran meesha waxaa ka soo baxaya sida niyadeyda ah amba ay xaqiiqadu tahay Somaliland oo dawlad u ekaata oo dhamaystiranta marka waxa meesha imanaya saami qaybsi dhaba waxa meesha imanaya cadaalad ayaa imanaysa ee wadankuna sidaas wuxuu ku gaarayaa horumar waxaana laga yaabaa dadka bariga iyo dadka galbeedku haddii ay ku qancaan oo ay isku raacaan in la sameeyo barnaamijkaas ayna aad u jeclaadaan Somaliland inuu yaraanayo mucaaradku marka uu yaraado mucaaradkuna beelaha dhexe laftigooga iska soo horjeedana inay labada group ee bariga iyo galbeedka kala xigay ay u horseedi doonaan heshiis ka dhex dhaca beelaha dhexe oo iyaga laftigooga ay walaalnimo wanaagsan samaysan doonaan Somalilandna iyadoo oo beelaha dhexe beelaha bariga iyo beelaha galbeedka ah oo isku dheeli tiran oo qofna qof aanu mucaarad ku ahayn oo dimuqraadiya oo saalixa waxa laga yaabaa inay markaasi dawlad rasmi ah noqoto ixtiraaf raadintuna aad iyo aad u fududaato oo marka ay sidaa kaga go'i karaan dalka Soomaaliya sidaa kaga go'i karaan taas baa meesha iga cad aad iyo aad baad u mahadsan tahay aragtida deegaanada tukaraq ee gobolka Sool aragtidaada maalinta maxaad ugu baaqi lahayd Somaliland iyo Puntland iyo dadka halkaas soo fadhiya dagaalama ma ka joojiyo umada iyo ka leedahay aragtidaada walaal dadkaasi waa dad maskaxdooda aan fadhiin oo inta badan dad jahli ah oo la yaqra wala yaktiba oo maxaan ku dhaw waxa la waxay ku dagaalamayaan lama yaqaano dagaalkaasi dagaal waxa la wax hadafa oo uu ku salaysan yahay malaha ka Puntlandna dad meel degan oo masaakiina ayuu dhulkoogii ku soo weeraray oo dhulbahanti la yiraahdo kan kale Somaliland laftigiisana dad baaba'ay oo ayna weligood waxba u qabanin ayay mataqaanaa isku dul dagaalayaan meesha dad shacaba oo waxa degan la yiraahdo dhulbahante ka Puntlandna weligii waxba uma qabanin kan Somaliland la yiraahdana weligii waxba uma qabanin dhowr nin oo jeeblayaala unba meesha isku celceliya haday ka Puntland tahay iyo haday ka dhulbahante meesha jooga tahay iyo haday kan kale xagga Somaliland ee galbeedka ay tahayba dadka masaakiinta ee meesha degan ee walaalaha ah ee dagaalka waxa la waxay kala socdaan iyo qabiiladaas waxa la waxay ku og yihiin aan jirin ee biyo iyo baad aan haysanin ee mataqaanaa noloshooda ay gabaabsiga ku jirto qaar baa waxa la waxay ku ciidaan aan jirin oo cunto dab loo saaraynin maalinta ciida dadka goboladaas ku nool oo wallahi ah waana kibir rag dibirsan oo hilib iyo bariis ka dhargay labada dhanba ka yimid baa isku dul dagaalaya oo kibirsan maalinka qiyaamahana ilaahay ha ka gooyo dadkaas waan inkaaraya waa mataqaanaa 10kii cisho u dambeysay wiil Soomaaliyeedna in mataqaanaa kibir isku dilaan maalin aan maanta ahayn bay garanayaan kullay Soomaaliduna dad maskaxdoodu fadhida walaal maaha waa dad caana geel cabay oo dhammaan wada haafmaada maalin aan maanta anaha geel waa dawo ka daadiyay anaha geel waa dawo inaad halka waan ka diiday walaal ma aqaano Soomaalidu geed ay cunaan waan faham waay aniga umada kale way ka maskax fudud yihiin hadda Ethiopia hadda tagto Soomaalidu way waalan yihiin baa lagu oranay haddaad meel kasta adduunka tagto waa dad waalan baa lagu leeyahay marka that is true waxay wadankoodu u dhisan waayeen waa dad wada haafmaad oo nooc kala anu cunto ay cuneen baan fahmi lahayd research baan sameeyaa ilaa hadda cunto Soomaalida ku khafiifto waan raadiyaa marka waxaan isla malaa caanaha geelay wax ku jiraan because caanaha geel baan cabnaa moogtahay oo ugu badan lahay oo dadka kale kaga duwanahay marka daraasad Ingiriiska lagu sameeyay bari daraasad Ingiriiska lagu sameeyay waxay sheegaysay in dadka hilibka cuna ee hilib cunista badani
ay ka kulkulul yihiin dadka kale qofba qofku exactly hilibka in xanuun badan baa jira yahay ayuu ka kulkulul waka waniyow xanuun baa jira soomaalidu abaartan haysa iyo dagaaladan waxa kaga daran xanuuno dhanka maskaxda in loo diro oo la saaro guddiyaal dhanka maskaxda oo lagu sameeyo cilaaj macnaha psychology ahaan dadka Soomaalidu dad fadhiya inayna ahaynba aad waayo baad u mahadsantahay akhi waqtigii wuxuu ii soo gaadhay afurkii baa ii soo dhow dhammaan waan kaa mahad celinaya walaal waqtigaaga iyo dhammaantii bulshadii nagala qayb qaabatay barnaamijka kan iyo barnaamijkani barnaamij kale insha Allah waxaan ku kulmi doonaa aad baan walaal kaaga mahad celinaya insha Allah walaal Allah yaasay dhammaantiin waxaan leenahay rabadaan kariim meel kastoo daafaha adduunka aad ka joogtaanba bisheeda ilaahay caafimaad iyo cimri dheer inuu gaarsiiyo inta dhiigkarka qabta ee macaanka qabta waxaan leenahay saamixnaakum waxa laga sheekeynaya waa siyaasad weeyi maaha nacaybsho iyo wax aynkaasa siyaasaddana waxay noqonaysaa in wax la gorfeeyo oo wax la sheego oo la idhaaho intaas lagu heshiiyey berigii sidan ahayd marka ayaanu dhiigu kuu kicin waxaanu leenahay cafwan rabadaan baa lagu jiraa dhammaantiin waxaanu leenahay haddii aad dhiigkar leedahay ama macaan leedahay barnaamijyada noocan ah ka soo qaybgelina waayo arrimo xasaasi ah mararka qaar laga hadlayaa oonad xamili karayn qofkii xamili karaya waxaan leenahay waad dhegeysan kartaa maaha in reer macnaheegu la caayayo laakiin siyaasad waaqac oo jirta ayaa laga hadlayaa iyo xaqiiqo waaqac oo jirta xaqiiqada waaqacee jirtana haddii ay ku dhibaso ma qurux badna inaad fagaarahan oo kale isku timaadid annagu Soomaali nacaybna ma nihin reer nacaybna ma nihin waxa weeye wixii la wada lahaa ayuunbaa la doonaya in la wada saxo sida guddoomiyaha maxkamadda sare jananka militariga jananka bileyska wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaasoo dhanba taliyaha immigrationka daahiriya shamistaasaa la doonaya inay ummadda wada yeeshaan marka ahna fircoon bay u shaqayn weyday oo ilaahnimo sheegtay bilaa calaykum marka walaalayaal waxa weeye haddiiba dhul la wada leeyahay dhul la wada degan yihin war waa in si nabada iyo sinaan oo dowladnimo loogu noolaado wayna noqonayn waa in la kala noolaado oo la kala tashado intaynu ka hadlanaa waa intaa dhammaantiin waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya yomul ciida lagu jiraa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu